halkani waa jasiiradda Ireland waa jasiirad yar oo ku taala darafka fog ee waqooyi galbeed qaaradda Yurub jasiiraddan inkastoo ay yar tahay haddana waxay ku guuleysatay inay iska caabiso jilbahana u laabto boqortooyadii ugu xoogga badnayd dunida xilligaas ee Ingiriiska kadib 800 oo sano oo ay jasiiraddani kala kulmaysay gumaystihii Ingiriiska isku dayo lagu tirtirayo aqoonsiga bulshadii ku noolayd ugu dambayn Ingiriisku wuxuu ku khasbanaaday inuu isaga baxo jasiiraddan balse wuxuu ka tagay xuduudo dhiig lagu sawiray oo kala qaybiyay dadkii jasiiraddan sida nabdoon ugu wada noolaa muuqaalkeenna maanta waxaynu ku eegi doonnaa sheekada jasiiradda Ireland iyo sidoo kaleba sida dadka Irishku ay isaga dhiciyeen gumaystihii Ingiriiska magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar halkanina waa Wabari Media ku soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkeenna maanta 8,000 sano ka hor taariikhda miilaadiga ayaa la tilmaamaa in jasiiradda Ireland ay soo gaareen dadkii ugu horeeyay ee saldhigta kuwaas oo ahaa ugaarsato casrigii wax soo saarka beeraha bulshooyinkii jasiiradda ku noolaa waxay bilaabeen ugaarsigii inay ku beddelaan beero sidoo kalena guryihii ka samaysnaa cooshadaha ay u beddelaan guryo dhismo ah oo alwaxyo ka samaysan wakhtigaana bulshadu si xawli ah ayay u koraysay una tarmaysay 700 sano ka hor taariikhda miilaadiga waxaa jasiiradda soo degay qabaa'il cusub oo la yiraahdo Celts kuwaas oo ka yimid bartamaha Yurub qabaa'ilkani waxay deegaankii la yimaadeen luqadoodii dhaqankoodii iyo agabyadii ay isticmaali jireen sida hubkoodii iyo wixii la mid ah iyadoo ay xaaladu sidaa tahay ayay sanadkii 43 ee miilaadiga boqortooyadii Rooma qabsatay dhulweynihii la isku oran jiray Britain waxayna ka dhigatay gobol iyagoo hoostaga loogana arrimiyo Rooma ka hor inta aan la gaarin sanadkii 410 miilaadiga xilligaas oo ay duntay boqortooyadii Rooma dumitaanka boqortooyadaas waxay sababtay in ciidamadii boqortooyadu ay isaga baxaan Britain waxa isla markiiba dhulweynihii Britain la wareegay qabaa'ilo asalkoodu ka soo jeeday Jarmalka oo la oran jiray Angles iyo Saxons qabaa'ilkani markii ay qabsadeen Britain waxay aasaaseen boqortooyadii England iyagoo dadkii asalka ahaa ee deganaa dhulkaas isugu geeyay galbeed iyo waqooyi qaar badan oo dadka ka mid ahna markii dambe waxay u carareen Ireland oo xilligaas loo yaqaanay Hibernia dhamaadka qarnigii 8aad gaar ahaan sanadkii 795 miilaadiga waxaa Ireland u bilowday waa cusub oo cabsidiisa leh kadib markii qabaa'ilkii Vikingku ay go'aansadeen inay jasiiraddan soo degaan qabaa'ilkan ayaa ku suntanaa inay ahaayeen dad dhib badan dhowr jeer oo hore ayay jasiiraddan soo weerareen waxayna u geysteen boob iyagoo gubi jiray kiniisadihii deegaanka ku yaalay balse markan dambe waxay go'aansadeen inaysan ku ekaan dhac oo keliya balse ay degaan jasiiraddan waxay dhisteen xeryo ciidan oo markii dambe isku beddelay magaalooyinka waaweyn ee ilaa maanta la yaqaan oo ay ka mid tahay caasimadda Dublin oo la aasaasay sanadkii 841 miilaadiga iyo magaalada Limerick oo iyadana la aasaasay sanadkii 922 miilaadiga waxyaabihii Vikingka u suurtageliyay inay jasiiradda Ireland qabsadaan waxaa ka mid ahaa in xilligaas ay jasiiraddan hareeyeen fawdo iyo khilaafaad xargaha goostay qabaa'ilkii Irishka ahaa ayaa qaybsanaa qabiil kastana wuxuu lahaa boqor dhexdoodana way istilayeen Vikingka oo ka faa'iideysanaya khilaafkaas ayaa qabsaday badi dhulkii xeebaha dhacay ee ku yaalay jasiiraddan Ireland wax xaaladaas fudada ah lagu jiro waxa bulshadii Irishka ahayd ka soo dhaxbaxay haliyay u istaagay mideynta bulshadiisa iyo iska caabinta gumaystaha ninkan oo ahaa boqor ayaa lagu magacaabi jiray Brian Boro wuxuuna ka soo jeeday qoys la oran jiray O'Brien oo uu madax u ahaa bilowgii hore wuxuu abaabulay ciidan tiro badan wuxuuna bilaabay inuu dagaalo iyo weeraro dhuumalaysi ah ku qaado Vikingka ilaa uu ka soo saaray koonfurta jasiiradda iyo dhammaan dhulkii muhiimka ahaa ee ay qabsadeen kadibna wuxuu u soo jeestay boqorradii kale ee Irishka ahaa ee khilaafku ka dhex jiray dhexdoodana dagaalami jiray isagoo mid u hoos keenay maamulkiisa sanadkii 2002 miilaadiga wuxuu ku guulaystay inuu mideeyo dadkii Irishka ahaa iyo dhammaan dadkii ku noolaa jasiiraddan isagoo isku magacaabay inuu yahay boqorka sare ee Ireland markii ugu horeysay taariikhda ayuuna dalkan noqday mid midaysan balse midnimadaas maysan sii raagin boqor ka arrimin jiray gobolka la yiraahdo Leinster markii horena hoos tegi jiray xukunkii Britain ayaa go'aansaday inuu fallaagoobo xukunkii Brianna uu ka hor yimaado wuxuuna xulafo la samaystay Vikingka 23 bishii afraad sanadkii 1040 miilaadiga waxaa dhacay dagaalkii caanka ahaa ee la oran jiray Clontarf boqor Brian wuxuu ku guulaystay inuu si xun u jabiyo fallaagadii isa soo baxaysatay laakiin guushaasi waxay isku beddeshay musiibo kadib markii Brian Boro oo markaas da'diisu ay ahayd 70 jir si gaadmo ah loo dilay isagoo teendhadiisa ku nasanaya geeridiisu waxay horseeday in midnimadii ay dunto boqortooyooyinkiina
ay dib ugu laabtaan dagaaladii dhexdooda ahaa sannadkii 1152 miilaadiga. boqorkii Leinster, Dermot MacMorrow, oo ahaa ninkii sababta u ahaa in ay midnimadan burburto, ayaa afduubtay xaaskii uu qabay boqor kale oo ka arrimin jiray gobolka la yidhaahdo Brefen. Arrintan waxay ka xanaajisay boqorkii, wuxuuna isbahaysi la samaystay boqorro kale iyagoo isku urursaday ciidan tiro badan. kadibna waxay weerar ku qaadeen gobolkii uu ka arrimin jiray Dermot, waxayna jebiyeen ciidankiisii, isagiina jasiiraddii oo dhan ayay ka eriyeen. Dermot halkii uu guuldarrada qaadan lahaa, ummaddanna uu dhibtiisa kala tegi lahaa, wuxuu aaday dhanka boqortooyadii Ingiriiska, isagoo u tegay boqorkii xilligaas ka arrimin jiray boqortooyadan ee la odhan jiray Henrigii labaad. markii uu soo galay qasrigii boqortooyada lana kulmay boqorkii, isla markiiba wuu jilba joogsaday, wuxuuna weydiistay taageero si uu xukunkiisii iyo boqortooyadiisiiba dib ugu helo. Henrigii labaad wuxuu siiyey warqad u oggolaanaysa inuu ciidan calooshadu shaqaystayaal ah ka qorto dhulkii ay boqortooyada England ka arriminaysay. Dermot wuxuu wakhtigaas la kulmay nin dagaalyahan ah, caanna ku ahaa geesinimo, oo la odhan jiray Richard de Clare, wuxuuna ninkan kula heshiiyey inuu gabadhiisa siinayo, sidoo kalena uu ka dhigayo dhaxal sugaha boqortooyadiisa haddii uu hoggaamiyo ciidankii uu qoranayay dibna ugu soo celiyo boqortooyadiisii. Richard wuu aqbalay. sannadkii 1169 waxaa xeebaha Ireland ka soo degay ciidankii ugu horreeyey ee ka amar qaata Dermot. dadkii Irishka ahaa waxay la yaabeen ciidankan oo waxay u barteen inay dagaalamaan iyagoo qaawan ama dhar khafiif ah wata, balse ciidankan uu Dermot Ingiriiska kala yimid waxay ahaayeen kuwo u qalabaysan si ka duwan sidii ay yaqaaneen. waxay gashanaayeen dhar biro ka samaysan, waxaa gaadiid u ahaa oo ay wateen fardo waaweyn oo loo carbiyey in lagu galo dagaalada adag, waxayna lahaayeen xeelado ciidan oo aan horey looga aqoon deegaankan. muddo yar gudaheed waxaa ciidankii Dermot gacantooda soo galay magaalooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin magaalooyinka Wexford iyo Dublin. Henrigii labaad oo ahaa boqorkii England markuu arkay guulaha degdega ah ee uu ciidankii calooshadu shaqaystayaasha ahaa ee Dermot qortay, Richardna uu hoggaaminayay, ay xaqiijiyeen. waxaa galay damac, wuxuuna go'aansaday inuu isagu jasiiraddaas la wareego. sannadkii 1171 miilaadiga ciidankii boqortooyada England oo aad u tiro badan ayuu ka soo dejiyey xeebaha Ireland. boqorradii Irishka oo awalba la yaabanaa una babacdhigi waayey xoogaggii calooshadu shaqaystayaasha ahaa ayaa cabsi daraaddeed ku qasbanaaday inay u hoggaansamaan iskuna dhiibaan boqorkii England, wuxuuna wixii xilligaa ka dambeeyey ku dhawaaqay inuu isagu yahay boqorka Ireland. markaska Altayba ee barashada Quraanka Kariimka iyo culuumta shareecada waa xarun waxbarasho islaamiya oo bixisa manhaj ku dhisan Quraanka Kariimka iyo sunnada Nabiga sallallahu alayhi wasallam, kuna salaysan fahamka madhabka Shaafiiciga. xaruntu waxay ujeedadeedu tahay in ardayda lagu baro akhrinta saxda ee Quraanka Kariimka, xifdintiisa iyo fahamka asaasiyaadka culuumta shareecada. wixii faahfaahinna ama isdiiwaangelin kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda. muddo dheer oo qarniyo ah ayay boqortooyadii England ka arriminaysay Ireland. muddadaas waxay jasiiraddan ku soo daadgureeyeen dad Ingiriis ah oo ay doonayeen inay dhaqandoorin ku sameeyaan bulshadii Irishka ahayd ee jasiiraddan ku noolayd. hase ahaatee waxaa yaab leh in dadkii Ingiriiska ahaa ee Ireland loo geeyey inay dhaqandooriyaan bulshadii jasiiraddaas ayba dhacday ujeeddadii loo geeyey lidkeeda. dadkii Ingiriiska ahaa waxay ku dhex milmeen Irishkii, waxay guursadeen gabdhahoodii, waxayna iska tuureen ilaa weenna afkii Ingiriiska iyo Faransiiskaba, iyagoo bartay afka Irishka. Ingiriisku markaa wuxuu ku jiray dhibaatooyin, wuxuu kala dagaalamayey Faransiiska. dhinaca kalena waxaa waddanka wakhtigaas faraba'an ku hayay cudurka daacuunka oo galaaftay nolosha 3 meelood oo meel dadkii degganaa Ingiriiska. dhacdooyinkan ayaa sababay in awooddii Ingiriiska ee Ireland ay ku soo aruurto meelo yar oo xeebaha ku teedsan iyo magaalada Dublin hareeraheeda. boqortooyadii England oo muddo kadib ku baraarugtay in jasiiraddan ay faraheeda ka sii baxayso ayaa qaaday tallaabooyin ay dib ugu soo ceshanayaan gacan ku hayntoodii jasiiradda. sidoo kale waxay soo saareen sharciyo ay uga gol lahaayeen inay ku joojiyaan in dadka Ingiriiska ah ay ku dhex milmaan Irishka. sharciyadan oo ku astaysnaa sannadkii 1366 miilaadiga ayaa lagu tiriyaa inay ahaayeen mid ka mid a sharciyadii ugu xumaa ee midabta koor ee bulsho lagu soo rogo. sharcigan wuxuu mamnuucay in qof Ingiriis ah uu guursado qof Irish ah, in lagu hadlo afka Irishka ama la xirto dharkooda, in fardaha loo raaco qaabka Irishka ama guryaha la soo gashto wax ku saabsan dhaqanka iyo sugaanta Irishka. balse sharciyadan ma noqon kuwo guulaysta oo way fashilmeen, sababtoo ah Ingiriisku sidaynu soo sheegnay wakhtigaa awood badan ma lahayn. awooddiisuna waxay ku koobnayd Dublin iyo hareeraheeda oo keliya. dadkii degganaa Ireland inteeda kalena waxay sii ahaadeen kuwo isku milan oo wada noolaada. sheekaduna halkan kuma dhammaan ee waxaa halkan ka bilaabanaysa
in ka badan 800 sano oo halgan ah. qarnigii 16aad wuxuu Ireland u ahaa bilowga waa cusub. qarnigan ayay ku bilowdeen halgan dhig badan oo ku dactay, ka sokow in dadkii Irishka ahaa ay gumaysi kala kulmayeen Ingiriiska. haddana halgankan iyo dagaaladan uu dhiigu ku dactay waxaa dhaliyey kadib markii boqorkii England Henrygii 8aad uu go'aansaday inuu xaaskiisa furo si uu mid kale u guursado. kadib wuxuu fatwo u bannaynaysa arrintan weydiistay madaxa kaniisaddii Kaatoolika ee Rooma. baadarigii kaniisaddan ayaa u diiday, wuxuuna u sheegay in tallaabadaasi ay ka hor imaanayso diintooda. Henry uu ka carooday fatwadan, wuxuuna go'aansaday inuu ka go'o kaniisadda Rooma, isaguna samaysto kaniisad iyo madhab u gaar ah kaas oo uu u bixiyey Protestant. kadib wuxuu amray in madhabkaas lagu faafiyo dhammaan dhulkii ay boqortooyadiisu ka arriminaysay. Ingiriiska waxaa si gebi ahaana looga qaatay madhabkan, halka Irishkiina ay ku dheganaadeen Kaatooligoodii, iskana diideen madhabka uu samaystay ninkan carooday. arrintan waxay dhalisay in boqorkii uu ka caroodo dadkii Irishka ahaa, wuxuuna amray in jasiiradda oo dhan xoog lagu qabsado, khasabna lagu gaarsiiyo madhabkii uu samaystay. markii Ingiriisku ay bilaabeen inay madhabkooda cusub xoog ku mariyaan dadkii Irishka ahaa, waxaa qarxay kacdoonno waaweyn oo arrintan looga soo horjeedo. waxaana ka mid ahaa kacdoonnadan kacdoonkii la magacbaxay Desmond ee uu hogaaminayey ninkan lagu magacaabo James Fitzmaurice, kaasoo iclaamiyey dagaal muqaddas ah, isagoo bulshadii Irishka ahayd ugu yaray inay diintooda iyo dhulkooda difaacdaan. dhanka kale Ingiriiska ayaa si naxariis darro ah uga jawaabay kacdoonnadaas, iyagoo adeegsaday siyaasadda loo yaqaan wixii kaa hor yimaadaba gub. waxayna dab qabadsiiyeen beerihii ay lahaayeen dadkii Irishka ahaa, waxayna qaleen wixii ay xoolo lahaayeen, iyagoo uga gol lahaa in dadkan wixii birtoodu ay gaari weydo ay gaajo u dhintaan. sidoo kale waxay geysteen xasuuqyo aan loo meeldayin oo ay ka mid yihiin xasuuqyadii Rathlin iyo Smerwick, kuwaasoo lagu laayay boqolaal haween iyo carruur ah. sidoo kale waxay Ingiriisku laayeen maxaabiistii ay dagaalada ku soo qabteen iyo kuwii isdhiibay ee ay u ballan qaadeen in aan la taabanayn, balse ballankoodii maysan oofin. dadkaasna way laayeen. arrintan waxay digniin u dirtay ciidamadii kale ee Irishka ahaa, waxayna go'aansadeen in wax kasta oo dhaca aysan isdhiibin, marba haddii la dilayna iyagoo sharafkooda u dagaalamaya ay dhintaan. ciidankii Ingiriisku markii ay ka soo takhalluseen kacdoonnadii ka jiray koonfurta, soona burburiyeen beerihii iyo magaalooyinkii ku yaalay halkaas, waxay u soo jeesteen waqooyigii. xilligaas ciidamadii gumaysidiidka ahaa ee ka dagaalamayey waqooyiga waxaa hoggaan u noqday mid ka mid a hogaamiyayaashii ugu dhiiranaa uguna caansanaa Ireland oo dhan. hogaamiyahan ayaa lagu magacaabi jiray Hugh O'Neill. O'Neill waxaa lagu tiriyaa inuu ahaa sarkaal caqli badan. wuxuu dhisay ciidan si casri ah loo qalabeeyey, wuxuuna ciidamadii Ingiriiska kala hortegay dagaal lagu magacdaray dagaalkii 9 sano, kaasoo socday intii u dhexaysay sannadihii 1594 ilaa 1603. ciidamadii O'Neill waxaa u suura gashay in ay dhowr dagaal ku jebiyaan ciidamadii Ingiriiska. ugu dambayntiina wuxuu kaalmo weydiistay boqorkii Spain, kaasoo ka aqbalay, wuxuuna u soo diray ciidan iyo hub. balse cimilada oo xumayd daraaddeed, maraakiibtii waday ciidamadii iyo hubkii Spain ka yimid waxay ku khasbanaadeen inay ku soo xirtaan kuna soo degaan koonfurta fog ee jasiiradda Ireland, gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Kinsale. O'Neill wuxuu ku khasbanaaday inuu inta uu waqooyiga ka tago uu u tago ciidankii gurmad ahaanta loogu soo diray. wakhtigaas waxay ahayd qaboobe, waxaana da'ayay baraf daran. O'Neill wuxuu waayey xal kale oo aan ahayn inuu ciidankiisa lug ku dhex mariyo barafka iyo qabowgii darnaa ee dhacayay si uu u gaaro deegaankii ay ciidanku ku soo degeen. ciidankii O'Neill way soo dhaqaaqeen, waxay baraf iyo qabow soo jeexaanba. ugu dambayn deegaankii way soo gaareen. hase yeeshee markii ay sidaa u soo gaareen iyagoo daalan, ayaa waxaa weerar kadis ah ku soo qaaday ciidankii Ingiriiska, waxaana halkaas ka dhacay dagaalkii la magacbaxay dagaalkii Kinsale. ciidankii Ingiriiska ayaa hareereeyey O'Neill iyo ciidankiisiiba, waxayna ka liseen seefta iyagoo si gebi ahaana u burburiyey, waxaana ka baxsaday tiro yar oo farakutiris ah. guuldarradan kadib, O'Neill iyo madaxdii kale ee waqooyiga waxay u carareen Yurubtii kale. Ingiriiskuna waxay fursaddan uga faa'iidaysteen inay la wareegaan dhulalkii ku fiicnaa beeraha iyo wax soo saarka, iyagoo dhulalkaas soo dejiyey 30,000 oo qoys oo laga kala keenay England iyo Scotland, haystana madhabkii uu muranku ka dhashay ee Protestantiga. sannadkii 1641 miilaadiga, dadkii Kaatooliga ahaa ayaa mar kale kacdoon sameeyey, iyagoo ka faa'iidaysanaya in wakhtigaas Ingiriiska uu ka socday dagaal sokeeye oo u dhexeeyey boqortooyadii iyo baarlamaankii. ugu dambayn dagaalkaas sokeeye waxaa ku gacan sareeyey baarlamaankii. markii dagaalkii dhammaaday, waxay Ingiriiska oo midaysan u soo jeesteen Ireland, waxayna jasiiraddan u soo direen mid ka mid a hogaamiyayaashii ciidan ee ugu arxanka darnaa taariikhda Ingiriiska, kaasoo lagu magacaabi jiray Oliver Cromwell.
Cromwell wuxuu ahaa xagjir aaminsanaa in Kaatooligu ay yihiin gaalo mudan in la tirtiro. Markii uu sidaa u soo gaaray jasiiraddii, wuxuu ciidankiisii amray inay go'doomiyaan magaalooyinkii waaweynaa, kadibna wuxuu amray inay gudaha u galaan, xasuuqaanna cid kastoo ka hor timaadda, cagtana ay mariyaan dad iyo duunyaba. Magaalooyinkii ay xasuuqa ballaaran ka geysteen waxaa ka mid ahayd Drogheda iyo Wexford, isagoo magaalooyinkan ku dilay dadkii rayidka ahaa iyo baadirayaashii kiniisadaha haystayba. Natiijadii ka dhalatay ololahan isirsifaynta ah ee uu hormuudka u ahaa Cromwell waxay ahayd musiibo bini'aadantinimo oo aad u daran, waxaana howlgalladaas lagu dilay dad kor u dhaafaya 400,000 oo Irish ah, taasoo u dhiganta 25% dadkii jasiiraddan ku noolaa. Kumanaan kale oo Irish ahna addoon ahaan ayaa loo qafaashay, meelo kale ayaana loo iibgeeyey. Dhulkii oo dhanna waxaa la wareegay Ingiriiska, dad Ingiriis ah ayaana la soo dejiyey. Wixii markaa ka dambeeyey waxaa la soo saaray sharciyado ciqaab wadareed ah, taasoo lagu ciqaabayey intii xasuuqa ka badbaaday. Sharciyadan ayaa dhigayey in dadka Irishka ah aysan lahayn wax xuquuq ah, sida inay dhul yeeshaan, wax bartaan, ama ay xitaa codeeyaan. Waxay xaaladdu sidaa ahaataba, waxaa dhammaadkii qarnigii 18aad qarxay kacdoonkii Faransiiska iyo Maraykanka. Kacdoonnadan ayaa soo gaaray Ireland. Xilligaas waxaa bulshadii Irishka ahayd u soo baxay haliyey lagu magacaabi jiray Theobald Wolfton. Inkastoo uu ninkani ahaa Protestant, haddana wuxuu ka dhidhiyey dulmigii Ingiriisku uu ku hayey bulshadiisa, wuxuuna aasaasay urur uu u bixiyey Midowga Irishka, wuxuuna u qalab qaatay midaynta Kaatooliga iyo Protestantiga si ay isaga caabiyaan gumaystaha una dhistaan jamhuuriyad madax bannaan. Markii uu wax walba isku dabariday, wuxuu garowsaday inaysan Irishku cudud ahaan u babacdhigi karin ciidankii iyo boqortooyadii faca weynayd ee Ingiriiska. Kadib wuxuu si dhuumalaysi ah ku tegay Faransiiska, isagoo ka codsaday inay garab siiyaan, ciidan iyo hubna u soo diraan. Faransiiskii way oggolaadeen, waxayna u soo direen maraakiib tiro badan oo ciidan iyo hub ah. Laakiin intaysanba soo gaarin Ireland, waxaa maraakiibtii ku dhuftay dabeyl xooggan, taasoo u suurtagelin weyday inay jasiiraddii soo gaaraan. Irishkii maysan quusan, waxayna go'aansadeen inay kacdoonkoodii bilaabaan. Sannadkii 1798 ayay dagaal kala hortageen ciidankii Ingiriiska, laakiin farqiga awoodeed ee u dhexeeyey labada ciidan ayaa sababay in la jebiyo Irishkii, lagana dilo tiro ka badan 30,000 oo qof. Wolfton isagana maxbuus ahaan ayaa loo qabsaday ka hor inta uusan markii dambe isdirin. Sidaas ayuuna ku fashilmay iskudaygaas. Ingiriiskii oo cabsi weyn ay soo gashay ayaa qaaday tallaabooyin uu u arkayey inuu kaga hortegayo kacdoon kasta oo mustaqbalka dhici kara. Mid ka mid a tallaabooyinkaas ayaa ahaa inay soo saareen sharci ay ugu magacdareen sharcigii midowga, kaasi oo ay soo saareen sannadkii 1801 miilaadiga. Sharcigan wuxuu meesha ka saaray baarlamaankii Ireland. Jasiiraddii Irelandna waxay u aqoonsadeen inay tahay qayb ka mid a boqortooyada midowday ama United Kingdom. Wixii intaa ka dambeeyey, dadkii Irishka ahaa ayaa kala noqday dabaqado. Irishkii Kaatooliga ahaa waxay noqdeen dabaqad hoose oo aan helin waxyaabihii ay xaqa u lahaayeen sida shaqo abuur, caafimaad iyo waxbarasho toona. Waxayna ku noolaayeen nolol ka hooseysa khadka saboolnimada. Waxay adeegayaal u ahaayeen dadkii Ingiriiska ahaa ee dhulkooda qabsaday, iyagoo beeraha u fali jiray, xoolahana u xanaanayn jiray. Waqtiyadaas waxaa saaxaddii xornimo-doonka ku soo biiray qareen lagu magacaabo Daniel O'Connell. Qareenkan ayaa sameeyey dhaqdhaqaaq u dooda xuquuqda dadkii haystay madhabkii Kaatooliga, wuxuuna abaabulay bannaanbaxyo nabadeed oo malaayiin qof ay ka qayb galeen. Bannaanbaxyadan ayaa ugu dambeyn ku khasbay dowladdii Ingiriiska inay soo saaraan sharci lagu magacdaray Sharciga Xorriyadda Kaatooliga, kaasi oo ay soo saareen sannadkii 1829 miilaadiga. Wuxuuna dadkii Irishka ahaa, gaar ahaan kuwoodii haystay madhabka Kaatooliga, u oggolaaday xuquuqo badan sida inay baarlamaanka galaan. Balse iyadoo rajadu fiican tahay, ififaallo wanaagsanna uu muuqdo, ayaa waxaa jasiiraddii Ireland ka dhacay musiibo lagu tiriyo mid ka mid a musiibooyinkii ugu xumaa taariikhda dalkaas. Dayrtii 1845, beeralaydii waddankaas ayaa arkay baradhadii ay beerteen oo uu bahal ku dhalay, wada xumaatayna. wax soo saarkii xilli beeraadkaasna wuu wada xumaaday. baradhadu waxay ahayd cunnada ugu badan ee dadka Irishka ah ay cunaan, maadaama hilibkii iyo kheyraadkii kale ee dalka uu Ingiriisku daldalan jiray. Tani waxay horseeday in bulshadii waddankaas ay soo food saarto gaajo iyo cunno yari daran, waxayna gaareen heer ay dadku jidadka gaajo ugu dhintaan, hooyooyinkuna ay carruurtooda siiyaan cawska iyo caleemaha dhirta si ay u noolaadaan. Arrintaase la yaabka iyo xanuunka leh waxay ahayd wakhtigii dadku ay gaajada u dhimanayeen. Maraakiibtii Ingiriisku waxay dekedaha Ireland ka daabulayeen oo ka dhoofinayeen kumanaan tan oo qamadi, hadhuudh iyo hilib ah. Ingiriisku way arkayeen dadka Irishka ah ee u lee'anaya gaajada
haddana umaysan oggolayn inay wuxuun quud ah ka helaan khayraadkan dalkooda ka soo baxaya. musiibada gaajadaas waxay dhammaatay 1852, balse waxay sababtay dhimashada in ka badan 1 milyan oo qof iyo barakaca 2 milyan oo kale. ilaa maanta, Ireland waa dalka keliya ee Yurub ku yaal ee tirada dadkiisu ay ka yar yihiin tiradii ay ahaayeen 150 sano ka hor. musiibada kadib, dadkii Irishka ahaa waxay cadaawad daran u qaadeen Ingiriiska. sanadkii 1916 intii uu socday dagaalkii koobaad ee dunida, Irishka ayaa bilaabay kacdoon, kaasoo ay ugu magacdareen kacdoonkii Easterka. kacdoon wadayaashii ayaa qabsaday dhismayaashii waaweynaa ee dowladda ee ku yaalay Dublin, iyagoo ku dhawaaqay Jamhuuriyadda Ireland. Ingiriiska ayaa si adag uga hortegay kacdoonkaas. wuxuu weeraray dhismayaashii ay qabsadeen kacdoon wadayaashu, wuxuuna madaafiic ku burburiyey bartamaha magaaladii Dublin, waxaana u suura gashay in muddo 7 ah uu ku soo afjaro kacdoonkaas, iyagoo xasuuqay hogaamiyayaashii kacdoonka waday oo u badnaa indheergaradkii bulshada sida macallimiintii, baadariyayaashii iyo suugaaniyahanadii. 3 sano uun kadib dhacdadaas, gaar ahaan sanadkii 1919, waxaa saaxadda halganka ku soo biiray shakhsi bedeli doona jihada halganka oo dhan, horseedi doonana in laga miro dhaliyo halgankii muddada dheer socday. ninkan ayaa lagu magacaabi jiray Michael Collins. tallaabadii ugu horeysay ee uu qaado waxay ahayd inuu dhisay ciidankii uu ugu magacdaray Irish Republican Army, maadaama ciidankani ay tiro ahaan koobnaayeen, sidoo kalena cudud ahaan aysan u dhigmin cadowgii ay la dagaalamayeen. wuxuu go'aansaday inuu ku tababaro adeegsiga xeeladda dagaal ee loo yaqaan ku dhufo ka dhaqaaq, iyo inay si gaadmo ah u weeraraan xeryaha ciidamada Ingiriiska. sidoo kale wuxuu dhisay shabakad sirdoon oo xooggan, wuxuuna xoogga saaray ugaarsashada saraakiishii ugu saraysay Ingiriiska. Ingiriisku waxay u taagi waayeen ciidankan aan garayn dagaalada tooska ah, sidoo kalena aan lahayn hal meel oo lagu hagaago. haddana mid ayuu u dhammeeyey saraakiishoodii ugu khibradda badnaa. sidaa daraaddeed waxay go'aansadeen wax kasta ha ku qaadatee inay soo afjaraan kacdoonkaas, waxayna jasiiraddii Ireland u soo direen guuto ka tirsan ciidankii Ingiriiska loona yaqaanay Black Antans. guutadan ayaa ku suntanayd inay ahaayeen arxanlaawayaal, cagta mariya meeshii ay soo galaanba, waxayna xasuuq iyo gubid ka geysteen tuulooyin badan. balse xasuuqaas wax natiijo ah way ka keeni waayeen. Irishkiina halgankoodii ayay sii wateen, taasoo ugu dambayn 1922 ku khasabtay Ingiriiska inay isdhiibaan, wadahadalna oggolaadaan. Michael Collins ayaa u safray caasimaddii Ingiriiska, wuxuuna halkaa boqortooyadii Ingiriiska kula soo saxiixday heshiiskii la magac baxay Anglo-Irish, kaasoo dhigayay in 26 gobol oo koonfurta jasiiradda Ireland ku yaala ay qaataan xorriyaddooda, halka 6 gobol oo waqooyiga ahna ay Ingiriisku gacanta ku sii hayaan, maadaama ay degganaayeen dadkii Protestantiga ahaa ee uu Ingiriisku ka kala keenay meelo kala duwan oo uu ka arrimin jiray. sidaas ayay ku dhalatay Jamhuuriyadda Ireland ee aynu maanta naqaano. Jamhuuriyadda Ireland oo mar dadkeedu ay gaajo u dhimanayeen oo mid ka mid ah dalalka ugu hodansan Yurub iyo dunida oo dhan, waxay noqotay Silicon Valley-ga Yurub, waxaana xarumo ku leh shirkadaha ugu waaweyn teknolojiyadda adduunka sida Apple, Google iyo Meta. intaas ayaynu ku soo gunaanadeennaa muuqaalkeenna maanta. haddii muuqaalkan uu ku qanciyey, ha ilaawin inaad like inoo saartid, sidoo kalena aad la wadaagtid asxaabtaada. haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran. mahadsanidin.